دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله إيرو قدومي حسبي معارض كوداني أي بارجين كده بمعلومات كشلي وحوسي رسمي يقول شيء قارئ وهرو قبلان قاضي محمد الدور وكم إذا دنيا ده دير كوجر من هذا صحافة إذا مر كان كهول كلا جدهر كيسا محمد يسيد وكلا كم إذا دنيا ده لحد كودو كلا لمية هي وأنا كلن كل جور شيء قارئ كوبشوك وحمسولين كترسن حسبي كوداني دنيا دن كوده صاحب دولة محمد هالدور waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani oo ay qayb ka yihiin xogeyaha guud ee xisbigaasi Khadar Xuseen Cabdi iyo sidoo kale gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga wadani Maxamed Sidiiq Cabdilaahi Dhamme waxaana yiraahdeen sidan guddoonsiinta gaariga Maxamed Haldoor oo gudoomiyaha xisbiga wadani isagoo xisbiga ka wakiila uu ka qayb qaadanayo dadaalka Maxamed lagu dhiirigelinayo maadaama uu yahay nin halgan nafeed ku jira oo isagoo naafaa aan nolosha ka quusanin ee sameeyay dadaalo wax ku oolaa oo naftiisa iyo qarankiisa iyo ummadiisa ugu sameeyay isagoo tacab dheer iyo jid dheer soo maray jawaabta gaarigan waxay tahay markii gudoomiyaha xisbiga uu ka qayb galay sanad guuradii Maxamed uu ku soo bandhigayay isbedelada noloshiisa iyo halka uu maray geediga noloshiisa ayuu gudoomiyuhu gartay in Haldoor Maxamed gaarigan oo ah deeq xisbiga ah in la siiyo si uu ugu guto hawlihiisa ugu si amba qaada dadaaladiisa waxbarasho iyo shaqo iyo nololeedba runtii waxay tani tusaysaa Soomaaliland iyo bulshadaba in qof kastaaba hadii uu baahi gaar ah leeyahay naafiyahay hadii kalaba uu gaari karo halka uu doonayo oo noloshiisana gaarsiin karo halka uu isagu jecel yahay la socota munaasabadan yara kooban ee aynu galabta isugu nimi aan doonayna in Maxamed ku guddoonsiino deeqdii gudoomiyahu isagoo xisbiga ka wakiilaha uu ugu deeqay sida Maxamed sheegay in badan baa la weydiinay sababta loo weydiinayna waxa ahayd waxaan is weydiinay Maxamed gaari caadi ah hadii maanta loo dhiibo la yiraahdo kaxee waxa laga yaabaa inay ku adkaato inuu kaxeeyo laakiin tiise gaari uu gacanta ka wadi karo sidii loo heli lahaa in Dubai laga doono marka runtii waqtiga Maxamed lagu weydiinay sababtu raagayna waad ugu dari doontaa hadii la heraado insha Allah maanta gaariga Maxamed xisbigu siinaya waxa Ingiriisku ay yiraahdaan drop in the ocean dhabic yar oo badweyn lagu dhex tuuray inaanay waxba ka tarin marka baahidii Maxamed ee weyneedna wax badan ka tarimayso baahidii weyneed ee dadka duruuftiisa oo kale ku noolina wax badan ka tarimayso laakiin waxay tarasaa baraarujin iyo wacyigelin iyo inaynu ogaano inaynu dadka xuquuqdii ay xaq u lahaayeen aynu umadahaan ilaalino waxa dhankiisa si aad uga mahad celiyay gaariga la guddoonsiiyay Maxamed Haldoor isagoo u mahad celiyay gudoomiyaha xisbiga wadani oo ugu balan qaaday sabrahantana balanqaadkiisa xiligan ka dhabay una iibiyay gaariga waa mid uu isagu si gaar ah u wadan karayo kaliim ilaahayna waxaan ka baryaa camaasha wanaagsan ee soo sameeynay iyo inta aynu sameyn doono inuu naga aqbalo ajarkeedana in siiyo sharaf bay tahay runtii iyo farxad inaan maanta waqtigu soo gaarsiiyay runtii aad baan ugu faraxsanahay maanta hal su'aal oo dadku weydiinayeen ilaa tan iyo maantii gaariga lagu dhawaaqay ay iga hadhi doonto tan dhaweeye raaco dadku waxay oranayaan taxigii gudoomiyuhu ku iibiyayba maanta taas iga hadhi doonto maanta dadkii jawaab baan u hayaa abaal bada iyo abaal buura iyo abaal laba buurooda ayaan u hayaa gudoomiyaha Cabdiraxmaan iyo xisbigiisa wadani runtii hadal badan inaan u kaco uma kicin aan raahdo halka marka waan idin mahadnaqayaa runtii gaariganna wax badan oo nolosheeda iyo horukaceeda ayuu iga caawin doonaa runtii gaariganna waxaan u bixiyay bulsho sababtan magaca ugu bixiyayna wixii aad habeenkii dad laga dhex dhawaaqay wad alkaysan u riyaaqay runtii gudoomiyaha iyo xisbigana uu duceeyay marka gaari wuxuu noqon doonaa ummadu leedahay runtii ay wada raaci doonto marka aad baan idinku mahadnaqayaa hadal badan ma oran doono laakiin aad baan u faraxsanahay Faisal Maxamed Aadan Faisal TV ka Somali Cable Hargeysa.